kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba daawadayaal meel kasta oo dunida aad ka joogtaan halkani waa qaaradda TV oo alaabaad kala socotaan wararka caalamka gayiga Soomaalida guud ahaan geeska Afrika qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan hadduu rabbi idmo waxaa ka mid ah xaaladihii u dambeeyay ee isla markaasi naga soo gaaraya dowlad deegaanka Soomaalida kala dirista ciidamada liyo booliska oo saameyn weyn ku yeelatay guud ahaanba gayiga Soomaalida gaar ahaan deegaanka Soomaalida waa Soomaali galbeed isla markaasi madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar oo degdeg u qaatay go'aankii ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayay ku tilmaamayaan dadka in uu meel kaga dhacay jiritaanka iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Soomaali galbeed arrimahaasi oo dhan ayaa halkan ku faaqidi doona daawadayaal hadduu rabbi idmo waxaana si toos ah isla markaasi u bilowmay mudaharaadyo waaweyn kuwaasi oo gebi ahaanba gaashaanka loogu daruurayo amarka ka soo baxay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xafiiskiisa kaasi oo ahaa kala dirista iyo isla markaasi kala musaafiriinta ciidamada liyo booliska ee dabcan la soo baxay sanadihii inoo dambeeyay quwadda ama awoodda la oran karo waxay astaan u ahayd dowladnimo qodobadaasi kuwa kala dhowr ay halkan ku faaqidi doona daqiiqadaha soo socda balse fadlan waxaan kaa codsanaynaa nagu soo biiro channelka subscribe saar isla markaana si aad nooga mid noqoto asxaabtaada u shargaree muuqaalada xiisada leh ee halkan aan soo gelino isla markaasi maalinlaha mahadsanid haddii aanu ku horeyno xaaladda magaalada Jigjiga waa xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ayaa gebi ahaanba laga dareemayaa walaac weyn iyo iska horimaadyo markaasi dhalisay arrimihii isla markaasi madaxweynaha amarnaha ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed waa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ee go'aankiisii ahaa kala dirista ciidamada liyo booliska ee gebi ahaanba ka howlgala gudaha waddanka Itoobiya magaalada Jigjiga oo isla markaasina si weyn ay u saameysay kala dirista iyo arrimahaas iyaga ah ee soo food saaray ciidamada liyo booliska oo deyr u ahaa gebi ahaanba shacbiga ku dhaqan Soomaali galbeed ayaa waxa laga dareemayaa gebi ahaanba dhaqdhaqaaqyo marka iyada ana horseedi kara qalalaaso iyo isku horimaadyo shacabka iyo waliba dhanka kale dowladda Itoobiya halka madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar isla markaasi uu si lama filaan ah ugu dhawaaqay kala dirista ciidamada liyo booliska oo gebi ahaanba uu fuliyay amarkii ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha arrinkaasi wali ma jirto cid si toos ah u qaadatay marka laga reebo dowlad deegaanka Soomaalida dowlad deegaanada kale ee Itoobiya ay ka kooban tahay gebi ahaanba waxay gaashaanka u durureen qaybo kamid ah ayna diideen arrinkaasi ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha waa kala dirista ciidamada liyo booliska dowlad deegaanka Axmaarada ayaa iyagu si weyn u qaadicay gebi ahaanba amarka ra'iisul wasaaraha waxayna ka xignaa ay dhaheen dagaal isla markaa iyada ana jabhad ayaanu noqonaynaa duurka ayaanu gelaynaa ay dhaheen waxaa sidoo kale ku taabacay arrinkaasi oo ku raacay gebi ahaanba madaxweynaha dowlad deegaanka ana dhahna madaxweynaha deegaanka Axmaarada kadib markii ciidamadii ay ka baxeen fariisimada ay ku lahaayeen gebi ahaanba deegaanka Axmaarada waa ciidamada liyo booliska ayna u jihaysteen dhanka dhulka buuraleyda ama Highlandska si ay difaacyo adag ugu galaan ciidamada militariga ah ee Itoobiya kuwaasi oo Abiy Ahmed uu sheegay cid kasta oo ka hortimaada amarkiisaasi in ay xoog iyo awood ku maquunin doonaan haddii hadda ay si sharaf leh isaga soo gudbin waayaan hubka ay hayaan isla markaana ay u qaadan waayaan amarka ra'iisul wasaaraha dowlad deegaanada kala duwan ee Itoobiya dowlad deegaanka Tigreeg oo labadii sano ee noo dambeysayba dagaal xoogan uu kala dhaxeeyay dowladda Itoobiya isla markaana heshiis yar oo waan haatan u bilowmay ayaa gebi ahaanba arrinkaas iyadana ku tilmaantay in uu yahay wax ay doonayso ama uu doonayo xukuumadda Abiy Ahmed haatan uu horkacayo gebi ahaanba in lagu wiiqo awoodaha ka jira deegaanada waxayna si toos ah u sheegtay in ciidamadeeda aysan arrimahaasi kala xaajoon doonin Abiy Ahmed madaxweynaha haatan ku meel gaarka ah ee loo magacaabay dowlad deegaanka Tigreega Getachew Reda ayaa si weyn u qaadicay hadalkaasi waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid god ku ridayso jiritaanka Itoobiya iyo dowladnimada iyo isla markaasi quwaddan ay isaga difaacayaan dowlad deegaanada cadow kasta oo lagu soo ama ku soo duulo deegaanada markaasi ay degan yihiin haddaba dhanka kale deegaanka Canfarta oo dagaalo xun ay kala dhaxeeyaan kan Soomaalida ayaa sidoo kale iyaguna madaxweynahooda waxa uu sheegay in aysan jirin wax ciidamo liyo booliska oo markaasina dowlad deegaanka Canfarta ah oo la kala dirayo inaysan jirin dagaal ay ka xigaan isagoo markaasi u soo qaatay tusaale dagaalka uu kula jiro Soomaalida oo dabcan waa sida uu hadalka u dhigay sheegay in dhul Canfar ay leedahay isla markaasina ay doonayso Soomaalida in ay ku samayso soo dirri xoogna ay ku qabsato madaxweynaha Canfarta ayaa sidoo kale arrimo hoose waxa uu kala xaajooday ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uuna u sheegay in Canfarta
Soomaalida iyo weliba qabaa'ilo kale ay cadaadis badan ku hayaan saas darteed haddii ciidamadooda la kala diro dhulka ay deegaanka u leeyihiin uu u gacan geli doono awoodaha ama quwadaha kale ee ku hareeraysan waa deegaanada sida isagaba uu sheegay dowladda Itoobiya gebi ahaanba tan iyo xilligii ay xukunka timid waxaa halkaasi ka baxay habdhaqankii siyaasadeed ee Itoobiya ay u dhisneed 30 sano ee la soo dhaafay waxaadna moodaa Abiy Ahmed in uu qorsheenayo in arrin diktaatoornimo ah isla markaa iyada ana 20 sano ee soo socota uu ku xukumo Itoobiya in uu u hirgalo saas darteedna ay tahay kaliya talaabada uu qaadi karo inuu kala diro ciidamada liyu booliska ah oo 10 iyo dhowrkii sano inoo dambeysay baan idhahnay quwad lama filaan ah oo lala yaabay gebi ahaanba kala soo baxay geeska Afrika waa hagaag haddaba deegaanada ugu xooga badan ee degan Itoobiya isla markaana ugu dadka badan ciidanka ugu badan ee liyu booliskana ay joogaan ayaa waxaa kamid ahaa deegaanada aan soo tirinay waa Tigreega Axmaarada Oromada iyo sidoo kale Canfarta iyo Soomaalida intaasi oo deegaan ama intaasi oo maamul goboleed oo Itoobiya ka tirsan ma jirto meel dhaqanka uu ka dhaqan galay hadalka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo isla markaasina ahaa kala dirista liyu booliska wax si toos ah u qaatay ama amarkiisa si toos ah u fuliyay ma ay jirto hase yeeshee dowladda deegaanka Soomaalida oo hogaaminayo Mustafa Cagjar ayaa waxaad moodaa in uu ku degdegay fulinta amarka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaana si degdeg ah u shiriyay isbuucan gudihiisa gebi ahaanba generaalada ugu sarsareeya ciidamada liyu booliska waxa uuna ku qanciyay wax aan macquul ahayn isla markaana ciidamada liyu booliska ayaa gebi ahaanba ka gadoodsan ama gowska ka qaniinsan howlaha uu kula kacay ciidamada liyu booliska ee difaaca dowladda deegaanka Soomaalida tiirka adagna isla markaana dhagta ku dhuftaa cid walba oo deegaanka Soomaalida doonaysa in ay si xoog ah ku soo gasho Mustafa Cagjar waxa uu ku qanciyay ciidamada ama uu u sheegay waxaana kamid ahaa qodobada uu sheegay ciidamada lama kala dirayo darajadoodana isma dhimayso mana jirta ciidan ama shakhsi ciidanka kamid ah oo shaqadiisa waayaya ama mushaarkiisa billaha aseegaya qof walba jagada hadda uu joogo ama halka hadda uu darajada ku leeyahay ayuu ku lahaanaya balse waxa sidoo kale la yaab noqotay in gebi ahaanba uu yiri ciidamada cidda aan rabin hubka ay iska dhigi kartaa shacab ay noqon karaan arrinkaasi oo ku noqday mid fajac iyo la yaab waxa sidoo kale uu yiri dawladda federaalka ama militariga federaalka ay gali karaan ciidamada qaarkood waa kuwii rabe waxa laga dareemayaa in dhaqdhaqaaqyo iyo waliba si murugo si toos ah u soo food saaray dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan Soomaali galbeed oo difaac adag iyo gidaar adag ay u ahaayeen ciidamada liyu booliska dadka siyaasadda sida gaarka ah u falanqeeya ama siyaasadda geeska ka faalooda ayaa waxay arrinkaasi ku nisbeeyeen ama ay ku saleeyeen in gebi ahaanba macquul ay tahay in arrimahani ay ka dambeeyaan dawlada shisheeye oo isla markaa iyada ana doonaya in la wiiqo awoodda Soomaali galbeed awoodda ciidan ee Soomaali galbeed joogta ayaa waxa lagu qiyaasay ciidamada liyu booliska in ay ugu yaraan 80 iyo dhowr kun oo ciidan ay yihiin oo kuwa sida gaarka u tababarana waxayna sheegeen awood halis ah in halkaasi ay ka soo socoto in laga hortagana kaliya ay tahay in dawladda Itoobiya ay amarto kala dirista ciidamadaasi dadka Soomaali galbeed ee shacabka ah ayaa bishinta qaniinsan waxaana u dhacay gabal madow gebi ahaanna waxay ku jiraan xaalad aan la qiyaasi karin waqti xaadirkan rabbi arrimaha sahlo qodobadana dambe wararkeena dambe ayaa waxaad ku maqli doontaan wixii ka soo kordho iyo faahfaahin dheeraad ah oo hadduu rabbi idmo haatan oo soo waqtiga inoo saamaxaynin mahadsanidin